muuqaalkeenan waxaan ku soo qaadanaynaa afar ka mid ah aasaarta ugu caansan ee la helay kuwaas oo kala ah dhagaxa Rosetta, Machu Picchu, aaska doontii Viking, Petra. dhagaxa Rosetta waa dhagax ay ku qoran tahay fartii hore masaarida oo loo yaqaan farta hieroglyphic. waa far asalkeedu tahay calaamado kaliya. dhagaxan ayaa lagu qoray wareegto laga soo saaray nin la odhan jiray Memphis sanadku markuu ahaa 196 ciise hortii, kaasoo wakiil u ahaa boqor Ptolemygii shanaad. wareegtada ayaa lagu qoray saddex qoraal oo kala ah hieroglyphic, farta demotic iyo fartii hore Greek. dhagaxa Rosetta waxaa leh askari Faransiis kana mid ahaa ciidankii Napoleon Bonaparte ee soo weeraray dalka Masar sanadkii 1799. kadib jabkii Napoleon Bonaparte waxaa dhagaxa Ingiriiska waxaa hadda lagu soo bandhigaa madxaf ku yaal London, halkaas oo uu yaalo tan iyo markaas 1802. muhiimadda dhagaxa Rosetta waxay tahay xaqiiqada inay siisay culimada hab ay ku fahmaan farta hieroglyphic, taasoo la fahmi jirin qarniyo badan marka la barbar dhigo fartii hore Greek oo horey loo fahmay kana kooban hieroglyphic iyo farta demotic. culimadu waxay awoodeen inay ka shaqeeyaan macnaha calaamado badan oo hieroglyphic ah. kala saaridda hieroglyphic waxay u ogolaatay culimada inay si fiican u fahmaan dhaqankii, taariikhdii iyo afkii hore masaarida. Machu Picchu waa magaalo hore qadiimi ah kana tirsan boqortooyadii Incan, kuna taalay waddanka hadda loo yaqaan Peru, gaar ahaan buuraha Andes. waxaa la dhisay qarnigii 15aad waxaana laga tegay 100 sano kadib oo laga yaabay inay sabab u tahay qabsashadii Isbaanishka. Machu Picchu waxaa dib loo helay sanadkii 1911 waxaana helay nin la odhan jiray Hiram Bingham, ahaana siyaasi iyo sahamiye Maraykan ah. waxaana tan iyo markaas noqotay mid ka mid ah meelaha ugu caansan ee loo dalxiista koonfurta Ameerika. goobta waxaa lagu yaqaanaa dhismayaal cajiib ah oo ay ku jiraan beero waaweyn iyo kanaalada biyaha oo ah meelaha ugu la yaabka badan. waxaana la aaminsan yahay in meeshan loo isticmaali jiray sidii guri boqortooyo ama goob diimeed oo muqadas ah, inkastoo ujeedada dhabta ah ee magaaladu ay tahay mid aan la aqoonin. aaska markabka Viking wuxuu ahaa nooc ka mid ah aaska ay Viking u aasi jireen shakhsiyaadka meeqaamka sare leh sida madaxda, dagaalyahanada iyo dadka magaca ku leh bulshada, iyadoo ay la socdaan alaabo kala duwan sida hub, dahab iyo cunto. aaska caynkan ahi waxaa la saadaaliyay in uu socday dhammaadka qarnigii 8aad ilaa iyo bartamihii qarnigii 11aad. Vikingku waxay ahaayeen badmareeno ku nool Scandinavian. aaska markabkii Viking ee ugu caansan waa aaskii markabka Osbeck, kaasoo laga helay waddanka Norway 1903, kaasoo lagu saadaaliyo inuu ahaa qarnigii 9aad. aaskan ayaa ka koobnaa hadhaaga laba dumar oo ay la socdaan agabyo kala duwan. waxaa sidoo kale caan ah markabka kale ee Gokstad ee laga helay waddanka Norway iyo markabka kale Sutton Hoo oo laga helay waddanka England. dhaqankan lagu aaso dadka markabka dushiisa waxaa la sheegaa inuu gaar u ahaa meelaha kaliya ee Viking degay. Petra waa magaalo qadiimi ah ku taal koonfurta Urdun. magaaladan waxaa la aasaasay qarnigii 4aad ciise hortii waxaana ahayd caasimadda boqortooyada Nabatean. waa qabiil Carabeed oo maamuli jiray ganacsiga gobolka xilligaas. waxay caan ku tahay qaab dhismeedkeeda cajiibka ah oo ay ku jiraan dhismayaal dhagax ciideed la qurxiyey, macbadyo iyo dhismayaal kale. Petra waxaa sidoo kale loo yaqaan magaalada Rose sababtuna oo midabkeeda. magaaladan waxa ay noqotay xarun ganacsi oo caan ku ah fooxa, beeyada, malmalka iyo dhirta cuntada sida xawaashka, filfisha iyo kuwa la midka ah. ganacsigaas oo badanka u dhaafi jiray dhinaca dhexe. magaaladan waxaa dib u helay sahamiye oo dhashay waddanka Switzerland oo la odhan jiray Johann Ludwig sanadku markuu ahaa 1985. Petra waxay hadda ka mid tahay meelaha loogu dalxiiska badan yahay bariga dhexe oo dhan.